wacan oo wanaagsan mudanayaal marweyn kusoo dhawaada kulmiya TV waa barnaamijkii ugu horeeyay aanu idinku talagalnay inaanu idiin soo deyno oo la magac baxay xikmadii marqaatiga. barnaamijkan waxaa alaaba idiin soo jeedin doono anigoo ah cabdinasiib xasan tarey, waxaana nasiib wanaag u helnay caawa inaanu la kulanno suugaanyahan weyn oo Soomaalidu ay taqaano, isla markaana taariikhda Soomaaliya aad iyo aad looga akhristo ama looga waraystaba. suugaanyahankaasi waa in badan ba waxaa laga yaabaa inaad idaacadaha ka maqasheen, in badan baa laga yaabaa muuqaalkiisa inaadan arkin. waxaa nasiib wanaag iyo sharaf noo ahaatay kadib martiqaad ay u sameeyeen ardayda Soomaaliyeed ee ku nool Ohio State, ku nool Columbus Ohio, ee dhigata jaamacadda Ohio State, inay u sameeyeen martiqaad ay uga hadlayeen arrimaha Soomaalinimada, ayna ku aadiyeen maalinta weyn 53 guuradii midnimada Soomaaliya ama xoreyntii Soomaaliya sidii dadkuba u yiraahdaan. maalintaas la ajligeed si ay u helaan tafaasiil iyo faahfaahin dheer ayay waxay martigeliyeen Axmed Faarax Idaaja oo marti noogu ah barnaamijkan aan ugu magac darnay xikmadii marqaatiga. Axmed Faarax Idaaja, kusoo dhawow barnaamijka. aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. magaalada Columbus waxaan joogaa hadda 7 ku dhowaad. waxaan ka imid Kenya oo aan deganahay. waxaan u imid shir halkan uga socday ama yani ay qalqaaliyeen dhalinyarada jaamacadda Columbus Ohio State dhigata oo Soomaali ah, oo la yidhaahdo dhalinyarada diasporada joogto Soomaaliyeed. ururkaas ayaan u imid 2 maalmood ayaa shirku socday. waxaa laga hadlay arrimaha Soomaalida guud ahaan, dhaqanka, siyaasadda, horumarinta, dhaqaalaha, wax walba oo ku saabsan arrimaha bulshada ayaa laga hadlay. shir aad iyo aad u wanaagsan ayuu ahaa. aniguna halkaa waxaan ka jeediyey de wixii aan ku soo talagalay oo ahaa cinwaanka ama taytalka shirku wuxuu ku socday oo ahaa Soomaalinimo. markaa taa ayaan ka hadlay. Soomaalinimadu waxay tahay, waxaa looga jeedo, meelaha ay ka muuqatay iyo sida hadda ay u ildaran tahay waayihii dambe ay u liidatay. intaa ayaan ka hadlay. marka sidaas ayaan ku imid, sidaas ayaana shirka caynkaas ayaan ka qayb galay. waxaad soo qaadatay abwaano aad jeceshahay, abwaano aad murtidooda aad u jeceshahay. waxaad kaloo soo qaadatay abwaankii caanka ahaa allah u naxariiste ee ku geeriyooday isla magaaladan hadda martida ku tahay ee Columbus Ohio, oo tixdii uu tiriyey ama heestii uu tiriyey dad badan oo Soomaaliya ay ku qiiroodaan oo ahayd Soomaali baan ahay. maxaad uga dhigtay Soomaali baan ahaydaas inaad barnaamijkan ku tusaalayso dadkii aad martida u ahayd? yam allah u naxariiste wuxuu dhintay 2005 aakhirkeedii. magaaladan ayuuna ku dhintay. saaxiib ayaanuna ahayn ilaa waa hore. heestaan soo qaatay oo Soomaali baan ahay la yidhaahdo, hees waxa weeye aad iyo aad u wanaagsan. munaasabadii uu ku tiriyana waxay ahayd 1978 dagaalkii Soomaaliya iyo Etoobiya, markii Soomaaliya lagu soo jabiyey oo ciidamada ajnabiga ah iyo Ruus iyo haddii la ku leeyahay Yemen iyo Kuuba iyo waxaas oo idinta isugu tageen ay ciidamadii Soomaalida ka soo saareen dhulka ay qabteen ee Soomaali galbeed. markaas ayaa Soomaalidu aad iyo aad u niyad xumaatay. marka ayuu yemiin rabay in uu ku muujiyo ama dadka niyadda ugu dhiso inaan yani la jabina la noolaan karo oo la kici karo oo haddii la ku ron yahay aysan yani madaxa hoos u foorin. marka heestaas aad iyo aad ayay u fiicnaydoo aad baa lagu qiroodo. waa hees muujinaysa qabka qofka Soomaaliga inuusan cidna u ahayn dabadhilif iyo haddii la ku ron yahay baryada iyo suu u caagan yahay. iyo weliba markaa waxaa jirtay Soomaalidu in ay xagga galbeedka iyo Maraykanka iyo Yurub ay u leexdo. dowladda Soomaalidu ay markaas ka rajaysay inay soo dhaweeyaan oo ay baalka geliyaan, maadaama ay Shuucigii iyo Ruushkii iyo ay dirireen.
taasoo ay ka cagataaleeyeen dowladaha maraykanka iyo reer galbeedku haddii haatan ay mucaawano siinahayaanna ay ku xireen shuruudo badan. marka heestu waxyaalaha ay ka hadlaysa waxaa ka mid ah yani inaanaan shuruud ogolayn oo aan dhimanayno annagoo sharaf leh inta aanu baryootami lahayn oo u soo gurguran lahayn awoodaha waaweyn iyo haddii aan la ku waranaya dowladaha waaweyn oo iyagoo doonaya inay arrimahooda fushadaan iyagu nagu fushadaan. marka heestaasi waxay ahayd hees u dhisaysa niyadda dadka Soomaaliyeed oo ciidankooda ku soo jabay haddii aan la ku waranaya dagaalka Etoobiya iyo Soomaaliya, dagaalka loo yaqaan 7778. waxaa kaloo jirto kolley dee abwaanka yamyam wuxuu ahaa abwaan wadani ah oo runtii aad u xiiseeyo una qiimeeyo soomaalinimada. kolley waxaa jira abwaano ka horreeyey oo Soomaali ah oo ku tabin jiray xikmad ku tabin jiray ama gabayo ku tabin jiray ama murti kale ku tabin jiray soomaalinimada ama muwaadinimada. maanta oo ay ku aadan tahay 1 July ama 1 Luulyo sida loo yaqaanaba oo ah 53 guuradii Soomaalidu goortay qaadatay xorriyadda. bal tix kaloo gaaban maskaxdaada ma ka soo qaban kartaa waad u malaynaysaa? maansiyahano badan oo Soomaali ah ayaa ka hadlay gobonnimada iyo guwaabadeeda wakhtigii la doonayay xorriyadda iyo kadibba. ragga ugu yaabka badnaa inta aan la socdo oo gobonnimadana dagaalkii loo galay safka hore ahaa, markii haatan la helayna raggii in wax la toosiyo ka shaqayn jiray oo maansiyaanka ahaa waxaa ka mid ahaa ama ugu horreeya runtii in la odhan jiray cali xuseen xirsi. cali xuseen gabyaab uu ahaa, haddana horseedka leegada uu ahaa. raggii wax walba loo diri jiray oo leegadu markay u halgamaysay gobonnimada meelaha halista ah loo diri jiray ayuu ahaa. gabyaab weynna wuu ahaa. gobonnimadii markii la helay oo calanka la taagay habeenkii 60kii isagoo raggii yani gabayada yani tiriyey haddii alla kuu ron yahay dabaaldega ah kuma uu jirin oo sababtu waxaa ahayd sansaan aan fiicnayn buu arkay intii daakhiliga la haystay dhowrkii sanoo ka horreysay 60ka. marka wuxuu is yidhi dadkan cayaarahaya iyo dadkan gobonnimada iyo soo dhoweynahaya ka daacad maaha ama ilaashan maayaan oo macnaha sidaa darteed wuxuu tiriya marka geeraar uu Soomaalida iyo calankana ugu ducaynayo nimankii Talyaaniga ahaayoo markii gobonnimada la qaatay joogay oo haddii alla kuu ron yahay aad uga xumaaday iyaguna calanka la saaray. kuwaasna waxbuu ka sheegayaa. Soomaalidana wuxuu yani iyadoo ay guwaba ka tahay waxa uu haddii alla kuu ron yahay ku dhaliilayaa inaysan noqon doonin dad gobonnimada xagsada oo ilaashada oo geya. markaasuu wuxuu yidhi calankaa calankii buu la hadlay marka ku halqabsaday. calankaa 5 gees lahow ilaahay guul ha ku siiyo oo cadowgaagu ha guuro oo gurigaa lagu saaray weligaa ku gabow. galabtii lagu taagay guddidii soconaysay gorahaanu lahayn iyo galbeedka kuwaan isku haynay goortii ay ku arkeen qaar baa gowska qari. wuxuu sheegayaa waa talyaanigii iyo reer galbeedkii oo ka xun calanka la qaatay oo Soomaalida iyo calanka taagtay. galabtii lagu taagay guddidii soconaysay gorahaanu lahayn iyo galbeedka kuwaan isku haynay goortii ay ku arkeen qaar baa gowska qaniinay oo gadaal kuu dhugan waayayo gardaray ku socdaanoo dad ay meel ku garaacdiyo gumaysi bay baratae haddii laysku gadoodo quruun guudka madow iyo gaaley kaama rogto. waa u ducaynaya weli ducadii buu hayaa. maraakiibta gudaysiyo dayuuraadka kan guuxiyo geeshash kuu xarbiyaayiyo gaas naftaada ilaashi iyo aamikaare gumaxano goobtii la isku dilaayo golfafaha ka samaysa guulan kuu baryayaayo geesahaga ka buuxibi oo hub iyo haddii aana kuu ron yahay hel. intaasi waa calanka buu ugu duceeyey. intaasi wayga gargaare waxa aan gocanayee gebigaaga ku fiican haddaan laguu garahaynin anigu kuu gabyi maayo oo guwaabayga dhammaatayoo Soomaali baan gad aqaano geesi kuu dirirayo gacal baanad lahayn.
haa gafuurtaagga qabiilkiiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadda ha joogtee inay kuu garba yeesho geejiyaan xariggaaga marna taa garan maysa sacabkaa la garaaciyo faysadaa gudaheedniyo farxaddaa lagu guulay gamba kuuguma taallo oo garaadkaa ka halaabayoo labadooda gacmood bay midba gees ku xireenoo waa isgaadahayaane gebgebtooda ha eegin haa hadda inuu sheegaya sooma fatooraadka guduudan qaar go'aa ka caddaadiyo kuwo aad goray moodiyo qaar gadaasha u dhuuban yay ku gaardiyayaane gobeeye ila eegoo ayaa kuu gurmanaya doqon looma gargaaro wax dhan baan gogosheeda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guulle ka sugbuy dadkaa hadda kuu cayaaraya waxba kugu tari maayaane kuwii soo socdaan annagay noqdeen annagina waa gabnay marka yani waxa weeye waa garaar had iyo jeer ku habboon in la xusuusto marka lixda guurada la yimaado indhergaradnimadu waa sidaas weeye qofku markuu yani ninka maansiyahanka nin indhergarada weeye wuxuu arkayaa sansaanka iyo dhaqanka dadka ayuu arkayaa markaasuu ka saadaalin karaa waxa soo socda waxay noqon doonaan cali xuseen wuu ka saadaaliyey waana aragnaa meesha ay calankii la dhigay marka waad mahadsan tahay waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo oo ku saabsan hadalkaagi u dambeeyey waxaa tiri kuwii laga sugaya inagu ahaan waan ka gaabinayse waxaa ku invite gareeyey oo halkan kugu marti qaaday dhalinyaro yaryar oo soomaali ah oo isugu jira aqoon-yahano oo isugu jiro dad waxgarad ah kuwaas ma u malaynaysaa inay badbaadin karaan horta dadka lagama quusto dadka dad fiican baa ka soo baxa haddaan annagu xumaanay da'dayda ay xumaatay oo haddii ayna ku rodin calankii ay dhulka ku tuurtay dad ka soo qaada in uu iman doono ilaahay waxba kuma aha waana muuqataa oo dhallinyarada bannaanka joogtaa waxaad moodaa inay aad iyo aad ugu gurmanayso arrimaha soomaalinimada marka waxaan filayaa dadyow badan baa oo dibadaha joogaa dowladuhu oo maraykan waa la wada yahay dad badan baa ah intaasoo quramood baa ah waa meel waxaa weeye qofku yimaadaaba maraykan noqdo laakiin haddana dadka joogaa ma iloobaan wadamadoodii marka wadamadoodii inay ka shaqeeyaan ma iloobaan soomaaliduna saasoo kalea rajaynaya weliba dhallinyaradan waxbaratay in ay haddii aan lagu roday calankii dhulka lagu tuuray ay mar labaad ka soo qaadaan oo soomaalida iyo dagaalada ka socda soomaaliya iyo arrimahaas intay mataqaanaa inaanay qayb ka noqon oo aysan u xaglin oo wax u ururin lacago iyo wax lagu dagaalamo laakiin horumarinta siyaasadda iyo arrimaha bulshada inay ka shaqeeyaan oo soomaaliya sidai mar labaad cagaheeda isugu taagi lahayd dadka laga sugayaa inta badan waa dhallinyarada wey odayaasha ma aha ama gudaha ha joogeen ama dowladda ha joogeen kuwa dibadda joogaana hadda wacyi sarreeya ayaan filayaa oo arkaya adduunka ilbaxaya sida ay wax u socdaan aan qabyaalad iyo dan gaara iyo haddii aana kuu roy yani ka madax banaanaan kara maxaa waxay joogaan waddamo ka madax bannaan waxaasoo dhan dhibaatooyinka axmed faarax idaaja waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal aan u malaynaya inaad ka gaabsan doonto waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa jirta dad badan oo soomaali ah oo jecel suugaanta oo jecel gabayada oo jecel waxa adiga aad hayso oo dad badan ay kaa kasbadaan inay kaa maqlaan ama kaa akhristaan waxaa jirta barnaamijyo aad ka soo jeediso raadiyayaasha ama gabayo aad meelo ku qabatay oo dadku intaas ay xulaanoo markii la arko yeesho qiimo aad u fara badan haddaba ma leedahay website ama facebooka waxa la yidhaha dadka yararka dhalinyarada ah ay hadda yeesheen ama meel aad waxaasoo dhan ku ururiso oo aanu ka heli karno ma jiraan haddeertaan facebooka iyo arrimahan twitterka iyo dee waan arkaayo waa la isticmaalaa laakiin badanaa anigu melihi websitena melihi kuwaasna melihi sababta waxaa weeye inta badan waa lagu sheekaystaa aniguna sheeko wakti badan uma hayo dad badan oo aad taqaan oo baa kuu soo galahayo oo aadan diidi karin inaad la sheekaysato wakti bay iyaguna wakti bay u baahan tahay laakiin barnaamijyada haatan aan soo daayey oo waxay ka baxaan v o eda hadday ka baxaanna waxay leeyihiin bage bay leeyihiin gaar oo ah waxaa la yidhaahdaa masalan v o a somali com markaad gasho dhaqanka iyo hiddaha ayaa kuu soo baxaya
marka waxa alla waxaan aan ku sheegay VOA dhowrkii sano u dambeysay 3 sano iyo xoogaa halka ayaa laga helayaa waxaad leedahay halkaas ayay ku kaydsan yihiin oo ku yihiin okay waxaan rabaa su-aasha u dambaysa maadaama waqtigu ciriiri nagu yahay su-aasha u dambaysa oo aan raba inaan ku weydiiya waxay tahay oon rabo barnaamijkan inaan gunaanad oga dhigo dadka badankiisa aan ku waraysan doono haddii ilaa yidhaahdo waxaa tahay nin soo joogay xilligii gobonnimada la qaatay calanka la qaatay waxaa tahay nin soo arkay dowladihii soo jiray dowladihii centraalka iyo dowladdii maxamed siyaad waxaa tahay nin burburkii soo arkay waxaa tahay nin soo arkay dowladihii kumeel gaarka ahaa ee fara badnaa ee soo maray iyo dowladda hadda jirto oo dad badan ay soomaalinimadii udgeyso maxaad kula dardaarmi lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyeed maxaad kula dardaarmi lahayd inay arrintan iyo waxaad soo aragtay iyo dadka Soomaaliyeed horta doonada markii la qaatay waa joogay laakiin nin yar baan ahaa anug baan ahaa laakiin kuwii kalena waa garanayaa wixii ka dambeeyey dardaaranka maanta oo kale aan u jeedin karaana waa la iska ogyahay oo waa dardaaran dadka oo idin dibnahooda ama qalbigooda ku jira waxaa loo baahan yahay waxa weeye in la ilaashado gobonnimada lana ilaashado midnimada soomaalinimada labadaas ayaa lagu gaari karaa ayaa ummad lagu noqon karaa haddii aan meesha ay Soomaaliya ku jirto laga soo saarin gumaysi dambe ayay geli doontaa mustaqbalka weliba waagi hore dad caddaan ah gumaysan jiray oo banaanada ka yimid kuwo dhow baa gumaysan doona haddii aan la baraarugin haddii aan danta shakhsiga ah la iska dayn haddii aan midnimada la ilaalin oo la isu soo noqon hadda degmay u kala go'an tahay gobol uma kala go'na xataa Soomaalidu waxyaalaha dhibaatada ku hayana waxaa ka mid oo ugu weyn siyaasad ahaan hadda waxaa lagu magacaabay federaal oo ah waxay cadowgu yani u keeneen oo aan Soomaalidu dooran una baahnayn aqoonna u lahayn kuna habboonayn iyo 4.5 haddaan labadaa la iska dayn federaalka iyo federaalka hadda waxaa loo qaatay nin walba inuu xor u yahay degmada uu joogo faasna maaha federaalku maxaa ma naqaan umana baahnin ummad yar baa nahay isku afa isku diina federaal waxaa qaata ummado kala diinaho haddii alla kuu ron yahay ama kala sinji ah oo aan isku af ahayn oo aan isku diin ahayn oo isku dhaqan ahayn laakiin federaal waxaan u baahanahay Soomaaliya waa wax lagu kala fogeynaya dadka Soomaaliyeed oo rabo inay arrintaasaan rabnaa inaan dhalinyaradana baa u sheegay arrintaas baa la rabaa inaynu haddii alla kuu ron yahay dagaal culus in lagu qaado dastuurka jira hadda la bedelo federaalka arrinta ku saabsan laga bedelo xukun baahin caadi ah oo haddii alla kuu ron yahay qofka yani aan xamar laga soo magacaabin dhiisiga matalan Galbahareed oo kale ama Burco oo kale ama haddii alla Garoowe oo kale yani aan laga soo magacaabin xamare dadku uu doorto taas oo devolution baa la yidhaahdaa ma aha federaal marka sidaas ayaan ku talin lahaa sidaas ayaana igu muuqataa inay ku badbaadi karto inuu ku badbaadi karo calanka Soomaaliyeed aynu maanta u dabaaldegayno konton guuradiisa waadna mahadsan tahay axmed faarax daaja aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa mar kaleeto waa kulmiye TV meesha aad daawanayseen qofka martida noo ahaana waad u jeedeen waa abwaankii suugaanyaankii taariikhyaankii Soomaaliyeed ee weynaa sidaas daraaddeed idin rajaynayaa kulanti wacan oo dambe iyo barnaamijyo xiiso leh oo wanaagsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dunida oo dhan ilayga doore daa'imna siiyayo degmada Afrika bari docdiisa iftiinka daarmo idoo birtiisa